kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan halkaad inaga daawanaysaan waa barteena aragti bulsho ku soo dhawaada warbixinta maanta. wiil dhalinyaraha oo lagu dilay xaafadda Soomaalidu u badan tahay Rinkeby ee gobolka Stockholm ee dalka Sweden. Booliska gobolka Stockholm ayaa xaqiijiyay geerida wiilkan oo meydkiisa laga helay jaranjarta mid ka mid ah daaraha dhaadheer ee ku yaala xaafadda Rinkeby ee caasimadda dalka Sweden. baaritaanka kiiskan dilka ah ayaa waxa ku guda jira qaybaha dambi baarista ee booliska Sweden gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Stockholm iyadoo ilaa haatan su'aalo laga weydiiyay tuhmanayaal la xiriirinayo kiiskan si ay xogo dheeraad ah uga helaan booliska cidda saxda ah ee ka dambeysay isku daygan sababay dhimashada. 20 jirkan sababsaday gacan aan wali la garan ayaa jirkiisa waxa ka muuqday dhowr xabadood kuwa oo ka haleelay meelaha halis ah taa oo ugu dambeyn keentay in uu u dhinto dhaawacaasi. Rinkeby oo dhacda dhanka waqooyi bari ee magaalada caasimadda u ah Sweden ee Stockholm ayaa la sheegayaa in ay tahay xaafad uu ku badan yahay falalka noocan oo kala ah iyadoo kol sii horeysay uu ka dhacay falal ay isku toogteen dhalinyaro da'doodu caynkan oo kala ah. intaanu barnaamij mid lamida ku wada kulmi doona asbuuca dambe haddii Allah awood leh idmo waa anigoo Xasan Maxamed Axmed Casal liishoodi kaga taga sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah.